Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududiisu gaarayso 30,000 oo askari kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dawladda. qiimayntii ugu dambeysay ee dawladda Soomaaliya ay ku sameysay ciidanka dawladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000 kuwaasi oo ku jira liiska dawladda. hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira hawlgab, kuwa curyaamay, kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta. haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waxay qiimayn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dawladda federaalka. qiimayntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka galka baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019. qiimaynta waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubbaland ay dhan yihiin 5,715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5,754 askari. ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin 3,231 askari, halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntlandna ay dhan yihiin 5,248 askari. AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyey ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi. inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4,500 oo askari. ujeeddada ay AMISOM u samaysay qiimayntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dawladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin, hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyey sida uu u arko qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada. markaas waa okay, waa saas iyo maaha mid lama dhihi karo, laakiin waxaan ogahay dowlad kasta inay leedahay daraawiish iyo booliis, laakiin waa aad u macquul u tahay markii la isku daro nabaradaas inay gaaraan nabarkaas ay sheegayaan. waxaana aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ogtahay tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay isleegtaba ku yahay, waxaa taga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku talagalaya waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro 20,000 kun ilaa 18,000 kun markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tagayna 38,000 kun waa ciidanka xoreynka. Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagnaa. waxaan weydiiyey marka hore inuu iga warramo wadamada 10kii sano ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya. Over about the last 10 years, we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance. 10kii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa iyo 12 wadan oo kala duwan, kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyey ciidamada Soomaaliya. markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd, haatanna waxay siiyaan dawladda federaalka. waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin: Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Sudan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan, waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood. waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin qaas ah oo ay siiyeen ciidanka. tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. markii dambena waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya, waxaana ay ka socdeen Muqdisho. dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalo madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo. askarta xilligan u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30,000 waxaa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda waddanka. waxaa kaloo caqabado ay ka yimaadeen hub la'aan haysata
taasi oo ka imanaysa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin. Sanadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen. taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhan tahay 5,000. khabiirka Paul Williams ayaa weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya. waxa kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dowladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda kala wareegaan ciidamada AMISOM. There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are 3 of them really. The first is political. I think by far ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo laakiin jawaabta ugu sahlan waxa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababarto isla markaana aad qalabaysid keliya sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa 3. tan ugu horeysana waa siyaasadda. ta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyayaasha waddanka iyo indheergaradka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. dhibaatada Soomaaliya waxa weeye waxaa jiray mudano badan oo u dhaxeeyay indheergaradka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istiraatiijiyad qaran oo dhismo ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah. sidaa darteed tan ugu horeysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. nasiib darro taasi ma dhicin. qiimaynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimayntu. waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Generaal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo waxaana uu la socday qiimaynta lagu sameeyay ciidamada Jubbaland. waxaan si gaar ah wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba. ma haystaan ciidanku taangii hoose asagu warkiiba ma jiro. madaafiicda waaweyn oo sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garnaylada sida qoryahan baasikiyaasha iyo qoryahan milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan iyo gacmeedyada iyo hubka la midka. marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaado kuwaasa ugu weyn inta badan. waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan qalab gaboobay oo duug ahoo xilliyo hore la isticmaalahayay ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo seebaasi midna. marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba way kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah howlgalladoodana waxu dhimahayo inta badan. haddaba markii ugu horreysay muddo sanad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyay ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota. laakiin hadda markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulliyadii jaalisiyaad la dhihi jiray baa loo qorsheeyey
aniga intii ugu horreysay waa saxeexay ciidamadii ugu horreeyey 2020 iyo 2022 iyo 12 Abril way soo magacaabeen districtkii waxaa dhiman Kismaayo iyo lixdamaad keliya ka dhiman yaa ururka ugu horreeyay in helo oo maanta meeshaas lagu xereeyo laakiin faraq baa u dhaxeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobolada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya waa jiraan laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaalida isku dhafan uu tago gobolka asagaa markaas gobolka wuxuu ka noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabadaas dhaco qiimayntii ugu dambeysay la sameeyay operational ready assessment la sameeyay September ilaa December 2017 qaybta 12aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiil kasta laga heli karin haaruun waxay ku xiran tahay deegaanka ma wax Soomaalidu for example hadaa magaalooyinka Soomaaliya tuula fiisa mesela tuula ciidanka qoraysa waxaa dhici karta tuulada markay ku qorto tuuladaas hal reer ugu badan yahay marka ciidanka aad qorto reerkaas u badana laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dila marna ma jiro Soomaaliya hadda waa ma jiro hala kala badnaado laakiin idinku way ku jirtaa oo gobolka jirta qiimayntii lagu sameeyay ciidamada dawladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dawladda federaalku aysan wada hubaysnayn isla markaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in 70% oo kaliya ciidamada dawladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska bedeleen hub la'aantii haysatay ciidamada qaarkood General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan hordhigay su'aashaas askar abuuraysan weli way jiraan sababaha ugu kooda ka badnaa waxaa weeye laba sababood anigu kole saa kow dalkan laga qabtay baa labo dalkan dhaqaalo badan ma laha oo intaasoo hub kusoo goto marka September waxaa dhacaysa in xoolaha soo goto xoolaha qori markii laga soo goto soo gadanaysa 500 dad muuda gaarsiin ciidanku ka badiyay marka September way dhacaysaa laakiin adinde ciidanku hawsmaya isma hayo marka imisa hadda ku qiyaasi lahayd 30% kiimay taaganta inta hub la'aanta mise way ka yar ciidanka dalada ugu haysta laakiin ciidanka soo tahay maalin walba la qoray marka kala qoray ma hub haysto waa gatay awal daba ka dalalo laakiin dawladdu ma waxa u weyday AK47 isla tasaalayay midda kale maanta hataa soo qoso kullin kunkaasi aan hubeyso beerig isla simaanka dama anada 500 kun kala u baahan tahay tamam away ku qaadi marka waxa weeye ciidanku waxa la yiraahdaa askari kasta oo fronta ku soo gashay waxa laga rabaa in 5 askari ay daba socoto soo dagaalamo waa 5 askari hadaa la buuxiyo in la dagaalamo karo ko xaqiiqi kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka caafimaad u hayay kii shidaal ku hayay shantaas waa in la helaa soo ninka hal qof soo dagaalamo dhawaan waxaa gilgilay haddaba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii Isbatoore Cali Dhuux Shaaweeye waa afayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu galka baarista uga waramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imisa bilowda mushahar ka maqan 4 bilood imisa garaamo cunto ka maqan 4 bilood idan la mid marka lacag intee leeg weeye marka la sugayo raashinka iyo mushaharka ka maqan wallahi mushaharka iyo raashinka yani hadda aniga wax ku tal hadda aan ku sii kara malaha mar waxay soo tuurayeen bil 100 mar 130 mar 128 oo mushaara mar ma isbeeto oo adiga waxay rabaan inay tuurayeen oo 15 hadda waxay rabaan inay tuurayeen wax ku tal hadda kuma sii karo yani mar waxay nala siinaa ku qanacsaneen qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay caruur aan leeyahay aniga 4 caruur aan leeyahay xaas aan leeyahay hadda cid kale kuma tiirsaniya oo dalka uu baa ku tiirsanahay meeshaas oo wax ka biisaawo nolosha ka maareysta caruurtaada da'doodu waa imisa iskuul ma dhigtaan
iskuul iyo waxaasa ka hadlaysaa adigu meesha wadanka waxa waaye waxa la cunaa raadiyo adigu iskuul iyo kale iyo meesha waxa ma yaalin haruun ma la idin diiwaan geliyey oo ma diiwaan gashan tihiin mushaarkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray waa nagala qoray meeshaan haruun waa la socotaa Soomaaliya waxa waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kala imaanayo oo leeyahay wax waxba kama jiraan tirakoob kale cusub mid kala imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutarada ama buuxinada waa gas waxa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada maya intaas ma aha fiiri xooga dalka waa taqaanaa ma aha in mas-uul inuu media ku istaago yidhaaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xooga dalka waxaa rabaa inuu yimaado baraha ay leeyihiin oo yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaago yidhaaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan waxaa kaloo jirtaa laleeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doonaanna yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysa iyo hay-ado kale maya taasi ma jirto haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mugta halkaas laga soo saxee asagaa macnaha marka hore sameeyo oo dadka qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo xilaale magacaabay xaggaa kasoo kadibna inuu baxo taliye xoog iyo banduulo xoog usoo maro yidhaha askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasay ayagana ku tagaan taliyaha ciidamada Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan waraystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka dalka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn hadda mushaharka ciidanka dowladda sida u timid aad bay wax isugu taxalluujisay ciidanka mushaharka sida u helo marka ciidanka mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisa daaha laakiin lacagtii meel bay taadeen lama waayo lodhiimayo lacagtaas ma taalo marka ciidanka mushaharka waa qaataa mushaarada meesha taala waxa ku filan yahay this is the issue oo loo baahan laga hadlo marka mushaharka waa la siiyaa laakiin mushaharkaas mid ku filan ma yahay askariga Soomaaliya aniga waxaan qabaa aasikaliya ciidanka xoogga mushaharkaas kuma filna sababta ku sheegay askariga Soomaaliyeed $160 buu leeyahay $160 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relativekiisa joogaan oo adeerkiisa uu eedadiisa wakiisa uu ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax soo deysada male meel cid wax keenaysa meel cid yaqaanaba ma marka isku dhabki waxbay u dhamaysaa cid askarigiisan haysan shaar ku filan